Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeenan cusub. Waxaanu kuugu soo gudbin doonaa cuntooyin kala duwan insha Allah biidnillaah. Maanta waxaynu sameynaynaa cinnamon roll. Waxaan ka bilaabay beed ama ukun sida taqaano 3 xabo oo beed ayaan isku daray, waan isku qasayaa, waan isdhexgelinayaa 3 xabo beeda. waan wadaa weli waxaan ku darayaa iminka koob sonkora ama bakeeri sonkora. beedkii sonkorta waan isdhexgelinayaa, isku qasayaa si fiican. ma wada aragtaan kale ingredients-gaan isticmaalayo oo dhan, laakiin mid baan iigu sheegayaa insha Allah. iminka beedkii sonkortii baan dhameeyay. waxaan ku darayaa blue band. waa subag fadhiya. waxaad isticmaali kartaa ay subag ama saliidba, maaha waajib inaad kan isticmaasho. waxaan ku darayaa 2 mulqacdood oo buuxbuuxa. qiyaastuna waxay ku xiran tahay markasta inta aad sameysanayso. anigu waxaan sameynayaa wax badan, markaa subaga sidaas darteed baan ugu badiyay. waan isdhexgelinayaa subagii iyo beedkii iyo sonkortii, intaas iminka isugu keeni jirta. waan isdhexgelinayaa. xagga waxaan isticmaalayaa mulqacad kale, laakiin waxaad isticmaali kartaa mashiinka haddaad haysato lagu qoosho keega oo kale waad isticmaali kartaa. isaga si fiican suu ka dhexgelinayaa. anigu waxaan isticmaalay tan iyo mid kale. iminkana waxaan ku darayaa yeast ama saad u taqaan baan amba fixiso. waxaan ku daray 2 mulqacdood. iminkana waxaan ku darayaa saliidda waan idin sheegay waxay ku xiran tahay ood isticmaali kartaan inta aad sameynaysaan, inta ay leegtahay marba. waxaan ku darayaa in qiyaastii ah bakeeriga haafkiisa ayaan ku daray. waan isku walaaqay, isdhexgeliyay. waqti badan bay igu qaadatay inaan isdhexgeliyo. waxaa ka fiican inaad haysato mashiinka. mashiinku wuxuu kaa qaadanayaa waqti yar, waxayna kuu noqonaysaa si soft oo smooth ay kuu noqonayaan. iminkana waxaan ku darayaa milix ama cusbo sidaad taqaanaanba. mulqacada yar haafkeega ayaan ku daray. iyadiina waan ku qooshay, ku walaaqay, isdhexgeliyay. iminka waxaan ku darayaa caanihii. waxaan ku daray koob caano ah, laakiin qiyaastaadu waxay ku xiran tahay inta aad sameysanayso. caanahana waan soo diiriyay, way diiran yihiin, sidaa darteed baad wax yariistii wax uga dhex aragtaysa. intaasaan isku wada daray. waxaan ku darayaa iminkana daqiiqdii ama bur saad u taqaanidba. waxaan ku darayaa 6 koob. koobkan aan isticmaalayaana wuxuu leeyahay unka shaaxa, bakeeriga shaaxa ayuu leeyahay. marka qiyaastuna waxay ku xiran tahay qofku intuu sameysanayo. wax yar haddaad sameysanayso uma baahnid inaad 6 koob isticmaasho. waxaad isticmaali kartaa waxaan isku dardaray oo dhan haafkooga ayaad ka dhigan kartaa. mid kasta haaf ayaad ka dhigan kartaa. daqiiqda, subaga, beedka, yeast-ta, wax kasta mulqacadaad ka dhigan kartaa. si fiican bay iminka isku soo dhexgelinaynaa, way isku soo noqonaynaa. waxaan kusoo shubtay daqiiq miiskii jikada, isagaan kusii xashayaa. halkaasaan si fiican ugu sii xashayaa. waqti badan ayay qaadataa in la xasho. xashiduna daqiiq kasta oo sameysanayso way u fiican tahay. hadhow
productii kaaga soo baxay ayaa fiicnaanaya. Waa inaad si fiican isu dhexgelisaa, si fiican u xashtaa. Subaga aan ku daray dartii ayaa ka dhigaya inuu isjiidanayo uu yahay sticky. Wali wuu jilicsan yahay laakiin waan isdhexgelin doonaa, si fiican ayaan u xashi doonaa. Waqtigan aan xashayo oo dhan waan tusayaa si aad hadhow idinkuna aad u xashtaan sidaas oo kale. hadhow waxaa kuu soo baxaya daqiiq fiican oo xashintay oo isdhex gashay. Iminkana waxaan ku darayaa saliid si aan si fiican ugu sii xasho. Labadii gacmood baan ku xashayaa iminka. Waxaa qurux igu soo baxay. Iminka waxaan ku ridi doonaa weelkii aan ku xashtay, waxaanuna isku soo laaban doonaa saacad kadib si uu inoogu faxo. Iminkana waxaan diyaarsanaynaa wixii aan dhexda ka marin lahayn oo ah koob sonkor, bakeeri iyo 2 mulqacadood oo ah qorfo. 2 mulqacadood oo buuxa weeyaan. Intaasaan isdhexgelinaa, isku walaaqanaa. Waxaad isticmaali kartaa sonkorta brownka haddaad haysato. Anigu laakiin tan cad ayaan isticmaalay. aad buu macaan yahay. Waxaadna u samaysan kartaa casari ahaan, galabtii oo kale ayaad cuni kartaan. waa tan daqiiqdii oo inoo soo faxday. 2 saacadood baan daynaa anagu, laakiin 1 saac waad dayn kartaa. hawl kale ayaan haystay, sidaa darteed ayaan daayay 2 saacadood. 2 saacadood ayay soo faxday. waad arkaysaan way ka weynaatay cabirka ay markii hore ahayd. waan xashayaa mar kale. daqiiqad yar baan ku daray, si fiican baan u xashayaa. iminkana daqiiqdeena waynu fidinanaa ama waynu kala bixinanaa. waana inay ahaataa cabir sukaa leeg 4 koornaba 4 geesba. si fiican u kala bixi. aadna ha uga dhigin khafiif, aadna ha uga dhigin adayg. waan rigayaa iminka. afarta dhinac way isu kala leegyihiin. waan ilaalinayaa inaanay 4 dhinac iga kala weynaan. hadhow markaan duubayo si aanay iga kala dheerdheeraan. waan dhameeyay iminka fidintii kala bixintii. wataa way isu kala leegtahay. waxaan marinayaa subagii aan markii hore isticmaalay intii iga soo hadhay. buluun baankii si fiican ayaan u marinayaa oo iswada leeg. 4 koornaba waan ku fidinayaa. si siman u wada mari, meelna ha ka tegin. iminkana waxaan ku bilaabay sonkortii iyo qorofalkii aan isku darsanay markii hore. iyagana sidoo kale si wada siman ayaan u marinayaa oo iswada leeg oo wada gaarsiinayaa. gacantaada waad ula tegi kartaa. wax burburan haddii kaaga jiraan marka hore aad iska shaandhayn kartaa. iminkana waan duubayaa, waan laabayaa. si siman u laab oo iswada leeg. waxaan bilaabay jarjaridii.
waxaan ku jarayaa waxa weeye duntaasaan si fiican kuugu jarayso oona kaana kala dheerdheeraynin si isleeg oo siman ayay u jaraysaa. sidoo kale midiba waad isticmaali kartaa, xaggaan anu dunta ka isticmaalayo. isagoo oo dhan sidaasaan kusoo jarjarayaa. waka anigoo ku diyaarsaday sixnigii ovenka. waxaynu kusoo noqon doonaa badh kadib. badh kale ayaan sugayaa inuu haddana mar labaad ii faxo. waa kan markuu ii faxay sidaasuu iigu soo baxay. iminka waxaan gelinayaa ovenka. iminka waxaan geliyay ovenka, laakiin ovenada qofba waxay ku xiran tahay ovenkiisa inta waqtiga oo qaadanaya. aninkaygu wuxuu qaatay 10 daqiiqo. sidaasuu iigu soo baxay. kamarada ayaa ka dhigaysa in yaruna madow yahay, laakiin ma madooba, manuu guban, casaan qurux badan weeyaan. maasha allah. 3 xabo ayaan xagga kusoo riday si aan idin tuso. iminkana waxaan ku darayaa condensed milk, caanihii macaanaa ee fadhiyay. aad ayuuna u jilicsanaa una macaanaa. Please asxaabta subscribe and like. halkaas ayuu ku ogyahay fiidiyoogeenii ugu horeeyay. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.